toddobaadkii hore dawladda Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay xogta laga helay sahankii shidaalka ee laga sameeyay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2014 ilaa 2016. Sahanka waxa isaga dambeeyay labada shirkadood ee kala ah Soma Oil and Gas iyo shirkadda Spectrum. Sahanka ay sameeyeen waxa uu ku kala duwanaa heerka badda salkeeda ee laga sameeyay sahaminta. Labadan sahan waxay sheegeen in fursadda Soomaaliya shidaal looga heli karo ay aad u sarreyso, waxayna ilaa haatan arkeen humaagii shidaalka. Sida lagaga dhawaaqay magaalada London, tartanka shidaalka Soomaaliya waxay rasmi ahaan u dhacaysaa 7 bisha November ee sanadkan, iyadoo isla markaaba loo sheegi doono shirkadaha guuleysta. waxaa xigi doonta saxiixa heshiisyadan oo dhacaysa ugu dambeyn 9 bisha December ee sanadkan. Heshiisyada la saxiixana waxay rasmi ahaan bilaabanayaan 1 bisha Janaayo 2020. haddaba su'aalaha u baahan isweydiinta ayaa ah maxay dawladda Soomaaliya soo bandhigtay toddobaadkii hore. Xilligan ma ku habboon tahay in la bixiyo qandaraasyada sahaminta shidaalka? haddii ay ku habboon tahay maxaa loo baahan yahay ee tallaabooyin ah in la sameeyo ka hor bixinta qandaraasyada? haddii aysan ku habboonayn maxay tahay sababtu? waxa kale oo aan barnaamijkan galka baarista ku eegi doonaa waa maxay saamiga ay dawladda Soomaaliya soo jeedisay inay ku bixiso heshiiska qaybsiga khayraadka ama production sharing agreement ee ay galayaan dawladda federaalka iyo shirkadaha tartanka ku jira. Su'aalahan iyo kuwa kale waxaan hordhigay wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hogaaminayay wafdigii dawladda Soomaaliya ee toddobaadkii hore xogta khayraadka Soomaaliya ku soo bandhigay magaalada London. sababta intaan u nimid waxay ahayd inaan soo bandhigno sahamo laga qaaday badda Soomaaliya sanadkii 2013 ilaa 2015. taasay ahayd sababtaan u nimid. waxaan shirkadaha soo bandhignay awoodda iyo ilaahay resource-ga aan haysano. marka cidii danaynayso waxaan rabnaa inaan waa road show maanta London aan ku qabanay. waxaan rajaynayaa inaan 2 magaalo kala waaweyn aan ku qabanno sidaas oo kale si aan adduunka ugu soo jeedino maalgashiyaasha caalamiga si ay u maalgashtaan Soomaaliya. maalmaha aad sheegaysid oo la leeyahay waa la soo sida la soo gudbinaya waa tentative days. macnaha waa maalmo oo aan isleenahay waad fulin kartaan, laakiin haddii ay noo fuli weyso la sababtoo ah baarlamaanka waxaa naga yaala sharcigii batroolka oo dib u eegis lagu sameeyey kaasoon soo bixin waxma samayn karno. waxaan rajaynaynaa sessionkan inta uusan dhammaanin inuu naga dhammaado sharcigaas haddii ilaah yidhaahdo, kadibna aan galno muxuu ahaa maalmahaas waxaan ku aadinay maalmaha baarlamaanka uu dhameeyey sharcigaas dhameeyey kadibna annagoo sharciga haysana inaan gali karno processkaas kale. laakiin imise shirkadood baa muujiyay inay danaynayaan inay ilaa iyo hadda wax shirkad oon hayna male. waxay ahayd bandhig guud. cidii danaynaysa dibay waxay ula soo xiriiri doontaa shirkaddii noo haysay muxuu ahaa daraasadda oo shirkaddaasa waxay u mas-uul ka tahay inay ciddii lasoo xiriirtaba inay si detaila u tusto meeshay danaynayso kadibna ay wixii soo dalbad markaas arkayna. haddaba ka soko jawaabaha uu bixiyey wasiirka waxaa jira su'aalo kale oo u baahan jawaabo in loo helo. waxaa jawaabo u baahan dawladda Soomaaliya dadweynaha ma u sharaxday dhammaan tallaabooyinka la qaaday ilaa haatan iyo intii uu socday shirka London. su'aalahan waxaan weydiiyey mid ka mid ah khubarada ugu aqoonta badan arrimaha shidaalka ee Soomaalida, isla markaana u soo shaqeeyay wasaaradda batroolka iyo macdanta muddo dheer ilaa laga soo gaaro bishii aynu soo dhaafnay ee Janaayo oo uu xilkaasi iska casilay. Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qoraal uu sameeyay uu uga digay dawladda Soomaaliya inay xilligan bixiso qandaraasyada. waraysiga aan la yeeshay Jamaal Qaasim Mursal waxa uu ku sheegayaa in wax yar ka hor shirkii London ay dawladdu wax ka bedeshay qiimaha ay ku bixinayso saami qaybsiga shidaalka. Jamaal oo ku sugan London waxa uu marka hore sharaxayaa waxa ka dhacay magaalada London ee lagaga hadlay shirkii khayraadka Soomaaliya. Background marka aad galowdid waxaad commitment ayaa samaysay oo ah in aad diyaar tahay. waxaa samaysay in maxay ahayd prestationada iyo wax oo dhan waan arkay waxaana waa dhageystay inaan arkano ma baahina xataa ka hor baaba ogaayba waxa meesha Bitran waxa uu yahay iyo waxa la qabanayo. auctionka ayaa furmay, license round tabeelayaasha meesha ku qoran waad aragtay, prestationada waad aragtay. waxa meesha loo joogo ma aha datadan dad tusinay. obviously way ku jirtaa in datadii maxay ahayd mar labaad la sharxo prestation laga jeediyo, laakiin muhiimadda maxay tahay dawlad marka ay Bitran furto waxa loo heshiiyeynayna maxaan ku yiraahdaa shirkaduhu waxay uga fadhiyaan dhowr qodob. hal inay meesha ka cadayso maxay ahayd sharciyadeedii. horta inay meesha ka cadayso inay furtay Bitranku inuu furan yahay, tartankii inuu furan yahay inay meesha ka cadayso. waxaa laga rabaa inay meesha ka cadayso
inay ka samayso block delineation wax la dhaho oo ah blockyadii oo la gadayay inay dhahdo bloggaas ama xirmadaas meeshaasay ku taallaa, xirmadaas meeshaasay ku taallaa, xirmadaas meeshay ku taallaa, cabirkeeda waa intaas. tiina meesha waa laga sheegay oo blogyadii waa delineationna lagu sameeyey. waxaa kaloo laga rabaa sharciga fiscal termska oo ah maxaan ku idhahdaa fiscal terms waxaa la yidhi waxyaalaha lacagaha ah oo dawladdu meesha ay lacagta ka hesho ah. fiscal termkaas ayaduna waa laga rabaa inay meesha ka caddayso which oo ay ka caddaysay already waana la gudbiyey. waxaa meesha kaloo laga rabaa tender document wax la yidhahdo, documentigii applicationadii wixii lagu samayn lahaa. agaasimii guuda meeshaas jooga oo presentation lagu samey la sharxay, shirkadihii qaabkay usoo marayna la sheegay. laga bilaabo marka ay shirkaas uu dhamaaday waxa furan applicationadii in lasoo gudbiyo, waxaana loo sheegay shirkado inay la xiriiraan spectrum oo ay meeshaas kala soo baxaan. waxa already waxaa bilowday in maxay ahayd applicationadii lasoo buuxiyo, fiscal termkii lagu soo waxeeyo. petroleum lowgii waxaa la gudbiyey 2008 kii ahaa la gudbiyey, ayadoona weliba kii kale la qodob kale oo laysku khilaafsan yahay waxa uu ahaa in Soomaaliya xilligan diyaar u tahay soo saarista shidaalka. wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu leeyahay wax dhiba kama taagna arrintaasi, shuruucda dhimadna waa la dhammaystirayaa. kaba soo qaad in sida ay ku hirgaleen oo 1 bisha Janaayo 2020 ay hawshu bilaabanto, waxa loo gudbinayaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan. golaha wasiirada kasokow ma kula tahay in loo gudbiyo dad madax bannaan oo eega guddi madax bannaan oo darso aqoon-yahana ama baarlamaankaba? baarlamaanka horta wuxuu naga yaala dib u eegista sharciga batroolka, kaasoo aan soo dhammaanin horta cid wax taaban karta ma leh. marka koowaad wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo hay-adaheeda la aasaasi doono ayaa mas-uuliyadda guud waddanka u qaaday inay hantidan u ilaaliyaan islamarkaana jid saxa ku bixiyaan. haddaad leedahay dad madax bannaana la keenaya, dadka madax bannaan aniga ma arko dad madax bannaan sabab loo keeno oo wasaaraddii awoodeedii ayaad leedahay cid kale hala siiyo. marka wasaaradda awood u leh inay wax bixiso, baarlamaankana wuxuu awood u leh inuu kor joogteeyo waxa annaga aan samaynayno. go-aan la gaari doonana ma jirto ilaa sharcigaas soo dhammaado, islamarkaana golaha wasiirada ay wada ogolaadaan in contract la saxiixo. laakiin golaha wasiirada baarlamaanku ma uga dambeyn inuu ansixiyo heshiisyadan? heshiiska baarlamaanka uu ansixin doono waa sharciga. heshiiska caalamiga, shirkad caalami lala galay ma aha shirkadda caalamiga lala galay waxaa mas-uuliyaddiisa qaadaya golaha wasiirada. waa gartay. haddiiba la dhaqan geliyo xeerkaas sharcigan cusub ee 2017 la qoray oo shidaalka oo bedeliya kii 2008, haddiiba uu baarlamaanku ansixiyo waxaa ku jirta in la sameeyo wakaaladii batroolka. wakaaladda batroolkuna muddo u baahan tahay. marka ma kula tahay sharciguna wuxuu dhigayaa wakaaladda batroolku inay tahay tan xaqa u leh inay waanwaan ka gasho, diyaariso qandaraasyadan hadda aad idinku hawsheedii haysaan? marka intaa ma lagu dhammayn karaa 10 bilood? aan ku saxo, sharciga horta wuxuu dhisi doonaa 2 hay-adood. hay-adda waxaa leedahay hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo waa tan xeer nidaaminta xeerarka fulinaysa. shirkad kalena waa dhisi doona oo shirkadda batroolka qaranka Soomaaliya la dhaho. intaba markii sharciga uu fulo way dhismi karaan, wax weyn maaha. waan dhisaynaa. inta ay dhismayaanna waxa wasaaradda iyo khubaro kale ayaa si ku meel gaara shaqada u sii wadaya. laakiin su-aashu waxay tahay ma horta la dhisa iyaga maxaa loo degdegayaaba? inteen u degdegaynaa kula tahay adiga? adaan ku weydiinayaa, macnaa maxaa u sugi laadiin? meelaan u degdegayna male, waxaan degdegayna male. aniga waxaan ku wadaa sharciga aan u gudbinay ku taallaa inta hay-addaas dhismayso. regulatory bodyga oo regulatory departmentiga wasaaradda iyo khubaro kale ayaa sii wadaya. wax aniga aan keenay ma aha. waa gartay. laakiin maxaa loo sugi waayeba inta la ansixinayo sharcigii baarlamaanka uu ka soo baxayo, wakaaladii iyo hay-addii shidaalkana la samaynayo? hay-adaha waa dhismi doonaan. shaqadaanna inaan soo bandhigno waxaan haysano isma diidana walaalo. laakiin xogayihii hore ee joogtada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qabaa fikrad taasi ka duwan. 2017 markii ay xukuumaddu ay awoodda la wareegtay waxa yeelay codsi ah in Petron la sameeyo, laakiin waxa yeelay shaqo aad u dheer oo ay ahayd in la qabto.
xukuumadda markaas dee waxay aynayn aada ugu mashquulsaneyd hawlo kale marka wasaaradda waxaa si cad loogu sheegay in ay hawlahaas ay hakiyaan oo xukuumaddu aysan diyaar u ahayn wax bedfown in lama qaban karo ilaa sharciga batroolka ee la sameeyey laga ansixinayo ilaa diyaar aan ka noqonayno oo aqoonteena iyo waxa ay heerkii la rabay kasoo gaarayso wax bedfown lama qaban karo. taa anoo xiganayo ayaa haddana oo weliba aan ku dhex jira waxaan ogahay annaga ka wasaarad ahaan intaasaan joognay 2 sano ugu dambaysay meeshaas oo warkaas nala kugu yiri nalagu siiyey wax iska kaaya bedelay ma jirto weli meeshaan taagana oo petroleum loogi lama ansixin tax loogi weli diyaar ma aha maxay ahayd capacity weli wax iskama bedelin institutionadii la rabay in la sameeyo weli lama sameynin. taa marka darteed ayaa horta waxaysan u noqonaynin in hadda maadaama la yidhi dib ha loo dhigo waxay ahayd horta diyaargarowgii la rabay oo xukuumadda may ku dhawaaqday diyaar u noqoshada inay dhab ahaato oo diyaarkii aan noqono kabacdi kana usoo gudin because hadda meel aan ka noqono ma joogno already waa commit garaynay oo maxay ahayd backgroundka yaa bilowday. haddaba muxuu ku bilowday? wuxuu ku bilowday sharciyo aanan wax hadda la rajaynayo aysan waafaqsanayn sababtoo ah hadda waxaa la gudbiyay sharciga 2008 kaasoo unitary system ku saabsan dawlad dhexe ayuu ku salaysnaa. su'aalo kale oo la isweydiin karo ka hor bixinta qandaraasyada ayaa ah maxaa laga yeelayaa xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka. bishii juun ee sanadkii hore magaalada Baydhabo waxaa heshiis ku gaaray dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. heshiiskaasi waxa uu dhigaya in dawladda Soomaaliya ay yeelato saami dhan 55%. maamul goboleedka laga soo saaray shidaalkana 25%. degmada soo saartayna 10%. halka degmooyinka aan shidaalka lahayn ay helayaan 10%. haddaba heshiiskan soo dhoweyntiisa waa mid ay ka wada sinaayeen dhinacyada haddii ay tahay dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahba balse waxaanay isku raacsanayn in xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan ay ogolaanayso in qandaraasyo la bixiyo oo lacag laga qaado shirkadaha sahaminta samaynaya iyadoo haddana aanay jirin is-afgarad siyaasadeed oo u dhexeeya dhammaan gobollada iyo dawladda dhexe. maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya waxa uu xilligan madax ka yahay macadka CPAM oo u taagan Somali Institute of Public Administration and Management. aniga waxaan taageersanahay waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay waxa laga dhaqaaqo waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay in dhaqaalaheeda ama kheyraadka ilada ay ka faa'iideyso taas absolutely 100% waa taageersanahay. waxaan marka kale oo taageersanahay waxay tahay si aan kaga faa'iideysano annaga dhankeena waxbaa soo jiro dhanka kalena waxaa jirta shirkadaha caalamka imaanaya waxbaa jiro mas-uuliyada jiro annaga dhankeena marka in aan siyaasadii aan ku heshino si ay noogu gasho in ayna dadka Soomaaliyeed isku qabsan ama dhibaato aysan ugu imaan shuruucdii loo baahnaa ilaan hadda waxaa jirta baarlamaan federaal waxaa jirta baarlamaan stateska ay leeyihiin inaan marsino hay-adihii naga maqnaa agency naga maqnaa ee hawshan u qaabilsanaa waxaan usoo qaaday amaanaha hay-adda bay-ada hay-adda nidaaminta shidaalka shirkadii shidaalka Soomaaliyeed mana waxyaabihii lafdhabarta u ahaa ee hawshan qaban lahaa in la diyaariyo ayagana macnaha waa lagama maarmaan. sidoo kale dad aqoon leh oo karti leh oo waxaan maamulana in la helo ayagana waa lagama maarmaan. waxaa ka soo baxay oo kale shirkii London rasmi ahaana loo ogaaday in shirkadda Spectrum oo haysa xogaha laga aruuriyay shidaalka Soomaaliya ay sidoo kale u xil saaran tahay iibinta xogta shidaalka ee Soomaaliya. wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed sidan ayuu u dhigay markii aan weydiiyey inay jiraan shirkado shidaal oo danaynaya shidaalka Soomaaliya kuwaasoo lacag siiyey dawladihii Soomaaliya. Somo Oil and Gas hadda kahor waxaa lagu eedeeyey musuqmaasuq inkastoo haddana dacwooyinkii iyo wixii loo haystay baaritaanka la sameeyey waxba lagu waayay laakiin mid ka mid a qodobada lagu haystay wuxuu ahaa inay lacago siisay wasaaradaha dawladda qaar ka mid a sida tabatroolka lacagahaasoo lagu magacaabay capacity building ama lagu kordhinayo tayada shaqaalaha wasaaradda. wax lacaga ah oo shirkado ajaanib ah idinka soo gala ama Somo Oil xilligan ma jiraan? Somo Oil xiriir lacageed ma lihin wax habaynaatee wax naga dhaxeeya ma jiraan oo aan ahayn inay shirkad Soomaali u shaqaysan tahay
shirkad kala jirta oo Spectrum yiraahdo oo daatada Soomaaliyeed noo haysa markii heshiiskii lala galay wuxuu ahaa inay wixii ayada ay baartay iyo wixii Soma Oil ay baartay ayada inay gacanta ku dhigto iibiso market garayso percentage dawladda Soomaaliyeed ayada u kala qaataan wax laakiin dhaqaale ah oo soo gala dawladda shirkad shidaal ah ama Soma Oil ama mid kale xilligan si toos ah iyo si dadban midna ma jiro waa la baari karaa waxay wax kasta ku soo dhacaan bangiga dhexe ee Soomaaliya wax wasaaradda batroolka magaceeda ku yaala iyo wax soo gala ma jiraan inta aan joogay soo ma gelin wasaaradda batroolka adaaba wasiirka ah marka ma jiraan Soma wax shirkad shidaal haday jirto oo shidaal siisa Soma oo lacagta Soomaaliya wad ogaan oo lacag Soomaali si hadda ma jirto way maxaad ka wadaa Spectrum baa noo iibinaysa qaybteedana siinaysa waxaan u maleeyay inaad tiri waa la tartansiinaya shirkadaha dhan may Spectrum waa shirkadii seismiga samaysay daatada Soomaaliya gacanta ku hayso waa multi client company waaye ayadana shirkadda inay noo iibiso noo hayso noo kaydiso daatada Soomaaliya intaas lagu shirkad lagu galay imise ku leedahay hadday xogtaa iibisa iyadu saami ahaan Spectrum ayada la teeda waa hadda kaba jawaabay waad ogtahay laakiin waa taqaanaa Soma intay leedahay heshiis ayaa la xafiiska waa shaqo dawladeed xafiisku yaala heshiis lala galay sharci ah adduunka og yahay dabcan waad nala wadaagi kartaa marka inta saamiga dawladdu leedahay inta Spectrum leedahay ma hadda ma sheegay 50% muu ka badan yahay saamiga Spectrum muu ka yaryahay 3 meeloodoo meel muu ka yaryahay mise uu ka badan yahay su'aashaas intaas ku ekay walaalo uu ka yaryahay way dhamaatay interest kugu jira muxuu yahay waxa igu jira dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan interest gaar ah ani shakhsiyan anaga oo hayna sirta anagana og waa intaasan ku sheegay marka 3 meeloodoo meel muu ka yaryahay mise uu ka badan yahay adiga inta aan ku sheegay u sheeg dadka Soomaaliyeed 50% ka badan ay ku leeyihiin hawshaas u sheeg intaas u sheeg dadka Soomaaliyeed hase yeeshee warar aanu ka helna ilo xogogaala waxay sheegayaan in lacagta ka soo xaroota iibka xogta sahanka shidaalka Soomaaliya ay dawladda Soomaaliya leedahay 75% halka shirkadda Spectrumna ay leedahay 25%. Jamaal Qaasim Mursal xogii hore joogtada wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa uu ii sheegay inuu ka warqabo in shirkadda Spectrum ay lacag soo siin jirtay wasaaradaha batroolka taasi oo soo bilaabantay xilligii dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud soona socotay ilaa sanadkii u horeeyay ee dawladda xilligan jirta Harunow waa sidaas sheegtay horta aniga Soma Oil waqtigeedii ma joogin inta dadka baarista socotay xataa war waa ka maqnaa laakiin su'aasha weydiiso ah waxa lagu eedeeyay lacag inay bixinaysay taas ayaa horta dacwada ugu badan ay ahayd lagu haystay oo capacity building kaas taas horta ayadana waa tan inta la baaray la yiri waa waxba laguma helin shirkada kale ma jiraan oo wasaaradda lacag siinaysa way jireen haddase ma jirto waxay jireen oo waqtigaas Spectrum ayaa wasaaradda lacag oo capacity building ah siin jirtay oo shaqaalaha expertise markaas joogay ay qaadanayeen marka seismic loo seeday one of the obligation ay ku jirtay oo ah in muddo 2 sano ah capacity-ga ay kabi doonto oo shaqaalaha xilligaasna waa sanadkii expertise-ka waxay ku ekayd August 2017 wixii ka dambeeyay ma jirin lacag kale wasaaradda ayna la siiyay goormayna bilaabantay waxay bilaabatay 2015 marka dawladdii hore ayay bilaabantay tanay ku la dhamaatay lacag intee leeg bay ahayd waxay ahayd bishii adi 6 biloodba $450,000 mas-uul si toosa uga warhayay lacagaha ay shirkadda Spectrum siinaysay wasaaradaha batroolka ee Soomaaliya xilliyo kala duwan waxa uu ii sheegay inay lacagtaasi dhan tahay $1,350,000 oo lagu soo shubay bankiga Soomaaliya kadibna wasaaradda maaliyaddu ay ku dartay miisaaniyadda wasaaradda batroolka mas-uulkaasi waxa uu ii sheegay in lacagahani aysan ahayn kuwa sharci darro ah ayna ansixiyeen guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khubaro Soomaali iyo ajaanib isugu jirta hase yeeshee waxay abuuri kartaa shaki in shirkad qandaraas kula jirta dawladihii kala dambeeyey ee Soomaaliya ay haddana lacag siiso wasaaradihii batroolka ee kala dambeeyey
dokumentiyada uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in saamiga ay dawladdu ku talisay inay ka qaadato qaybsiga shidaalka uu u dhaxeeyo 54 ilaa 66 boqolkiiba iyadoo ay ku xihan tahay baaxadda ceelka iyo qiimaha shidaalka galka baarista waxaa loo sheegay in khabiir ajnebi ah oo bishii hore tegay magaalada muqdisho dawladdana kala teliyey arrimaha qiimaha iyo diyaarinta saamiga uu qoray 27kii bishii janaayo in saamiga ay soomaalidu bixinayso uu yahay mid yididiilo leh oo ka jaban saamiga ay qaataan waddamada caalamka qaarkood inkastoo haddana uusan ahayn kan ugu hooseeya marka loo eego waddamada kale waxaa kale oo qoraalkiisa uu ku sheegay khabiirkaasi in shirkadaha qandaraaska loo saxeexayo saxeexii kastaba ay dawladda Soomaaliya ka qaadi doonto $2 milyan lacagahaasi oo la qaadi doono marka uu dhaco saxeexa heshiiska oo ah 9 bisha December ee sanadkan Jamaal Qaasim Mursal dhibaatada dhacday waxay tahay oo aniga aan ogahay oo cidna kalena ay sii sheegaynin in muddo hal samaan gudaheeda muddo 2 sano bil ka yar gudaheeda qof ay shakhsi kale la soo hayar gareeyay oo la keenay bis1 la dejiyay fiscal termkii oo yiilay oo hore u jiray oo dhan meel la iska dhigay mid cusub la soo saaray midkaas cusubna ka hor intaan bilkaanka la qabin lagu faafiyay website-yada oo la leeyahay Soomaaliya hadda waa the most attractive waxay haysataa kan ugu fiican oo ugu hooseeya wadamo badan oo ka hooseeya kaalaya waa most attractive marka meesha marka dhibaatada ka jirayso waxay tahay marka wadan anagoo kala ah oo rights uu bixinayo oo license uu bixinayo oo fiscalkiisa uu yahay noocaas macnaha waxaan bixinaynaa we giving away wax badan oo isteegeena ayaan bixinaynaa marka labada analysis la isku sameeyo analysis asaga uu sameeyay uu ku sameeyay iyo midkan oo hore u yeelay oo Opel qolada la yiraahdo ay ku sameeyeen oo IMF ay analysis ku sameeyeen waxa la ogaaday the best kan ugu fiican fiscal term inaan haysano ayaa la ogaaday laakiin haddeerkan wax badan laga bedelay overall marka la isku soo duubo waxa dawladdu helayso waxa lagu soo qowday 52 ilaa 60 kii hore wuxuu ahaa wuxuu kaga duwanaa wuxuu isla bedelayay maxay ahayd hadba marka lacagta ay soo cestaan ilaa 85 ayaa marka ugu dambeysay aan gaaraynay marka waxaan u baahanahay waxaan rabaa dadweynuhu in aad u fahmaan waxaad leedahay waanta wada xaajoodka marka la furo tartankan qandaraas bixinta bisha November 7deeda meesha dawladdu ay ka bilaabayso waanta heshiiska qaybsiga khayraadka waa 54 ilaa 60 waa intaas aad leedahay waa intaas boqolkiiba waxa weeye sida ku qoran 54 ilaa 64 54 ilaa 64 marka waxaad leedahay Soomaaliya heshiiska ka wanaagsan oo ka qiimo fiican ka qiimo sareeya ay heli kartaa ayaa jira waaba yeelaba wasiirka markuu xilka la wareegay lagu wareejiyay wuu yeelay kaliya meelsha taxiga ayaa xoogaa wax ka qaldanaa macnaha wuxuu rabay in la waafajiyo sharciga taxiga oo aan markaas jirin marka waxay ahayd in lala sugo sharciga taxiga tax lawga sharciga canshuuraha iyo sharciga petrolka in lala sugo markaas bacdi la waafajiyo wixii tax wasaaradda finance ayaa u qaabilsan wasaaradda maaliyadda u qaabilsan la isku raaco ka bacdi taas lagu waxeeyo lagu sameeyo su'aalaha badankooda ay isweydiinayaan khubarada Soomaalida ayaa ku jeeda heshiiskii lala galay shirkadda Soma Oil and Gas bishii August sanadkii 2013 heshiiskaasi shirkadda Soma Oil and Gas waxa uu saxeexay hogaamiyihii hore ee xisbiga muxaafadka Britain Michael Howard dhinaca Soomaaliyana waxa uu saxeexay wasiirkii hore ee batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxaan weydiiyey wasiirka qodob si weyn walaac ay uga muujiyeen dadka Soomaalida iyo khubarada dhinaca shidaalka oo ahaa in heshiisku uu ogolaanayo Soma Oil and Gas inay hesho 60,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah oo u dhiganta 12 xidhmood heshiiska waxaa ku jiray dabcan marka shidaal la sameynayo company uu rabay inuu waddanka shidaal ka sameeyo waxaa la galaa heshiis oo la yiraahdo production sharing agreement oo lagu heshiiyo waxay dalbadeen dee in heshiiskaas markii iyagana ay galaan sida kambaniyada ay usoo dalbanayaan ay usoo dalbadaan waxaa ku qoran in la siiyo tixgelin consideration in la siiyo marka ay soo dalbadaan blocks ma aha yacni blockskaasaan rabnaayo hana la siiyo ilaa ma aha kuma qorno meel ay kaga qoran tahay ma laha closeka ka hadlaayana waa akrin kartaa marka wax cayiman oo dhahayo ilaa
hana la siiyo. weliba waxaa aaminsanahay aniga markii aan heshiiska aan galaynay looyaro kasoo shaqeeyey khibrad dheerna u lah maxaa la yidhaahdaa heshiisyada lala galo shirkadaha baaro batroolka ayaa yani nala shaqeynayay. weliba yani si adag ayaan arrimahaas yani inaan yani nalagu yani aqoon la-aan ana yani wax badan oo aan xaq u leynaha ana loo siijin ayaan taxadir gaara siinaynay. marka ma ahayn wax intay yani heshiis inta lasoo qortay yani saas waxa si laabilaa waxaasaan rabnaa. marka heshiiska waxaan xasuustaa inay ahayd in la siiyo tixgelin, laakiin ilaa 12 block aa laydin siinaa ma ahayn. weliba waxaan jeclahay ma xasuusto laakiin inuu jiray close dhahaayo dawladda Soomaaliya wixii ay garato ayaa laydin siinaa. tixgelinta taasna xaqay u leeyihiin. waa company konton milyan geliyey inuu ogaado, annagana si aan ku ogaano waxa khayraada ee badii ku jiro. waa marka saasay ku timid. marka laakiin wax oo ilaa in la siiyo intaasoo block oo block ay rabaan la siiyo oo ay ku qoran tahay heshiiska ma jiro. khubarada uu ka mid ka yahay Jamaal Qaasim Mursal waxay si weyn uga soo horjeesteen qodobkan, waxaana ay ku doodeen inaysan habboonayn in dawladda Soomaaliya ay bixiso xidhmooyin sidaasi u tiro badan iyadoo xilligan uun la bilaabayo qandaraas bixinta iyo waayo aragnimada Soomaaliya ee shidaal qodista. waxaa la yidhi marka ay Sooma kusoo wareejiso maxay ahayd daatada kusoo wareejiso Soomaaliya in return bedelkeeda waxa ay helaysaa 12 block oo iyadu ay dooranayso by own preference ay qaadanaysaa, kuwaasoo la dhaho Sooma block. 12kaas block dawladda okay dhahday way u saxiixday. hadday u saxiixday maxaan ku idhahdaa horta meesha ummadda Soomaaliyeed ka wada qayliyeen taasay ahayd in seismic la qabto lacagna lagu bixiyo, haddana abaalmarintuna ay noqoto. waxa ayada hawsheedii way gudatay, way ka soo baxday, heshiiskeedii way qoratay, way ka saxiixdatay. marka waxaa looga fadhiyaa xukuumadda Soomaaliyeed wixii ay saxiixday inay ka soo baxdo. midaa jirta laakiin oo ah waxaa la siiyey notice of application, wax loo saxiixay oo saxiixa oo laysanka waa ka duwan yahay kaas. saxiixa laysanka waa marka kan hadda qaabka hadda lagu socdo ama direct negotiation ha loogu siiyo ama bidkaas soo gasho, markaas ayaa la siinaya. su-aashaase waxay tahay 12kaas block weli ma ayaday u xiran yihiin bidkaanka ma lagu soo darayaa ma direct negotiationka la sameynayo saasa lagu siinaya. blogyada waxa weeye waxay ka mid yihiin blogyada ugu fiican. haddii saasay dhacdo dee shirkadihii kale way iska fariisanayaan, waxay suganayaan inta Sooma ay ka qaadanayso. markaas kabacdina flip bay sameyne shirkadaasi ka gadane ayagana markaas samaysanayo. walaaca ay qabaan khubaradu waxa uu yahay haddaba inay Soomaaliya gasho heshiis muddo dheer oo aysan ka bixi karin, waxna laga bedeli karin, wada xaajoodna aan dib looga geli karin. khubaradu waxa uga digeen dawladda Soomaaliya inay taxadar weyn ka muujiso qaabka ay ku galayso heshiisyadan shidaalka lagu soo saarayo.